malaa sida wax loo baranayo iminka la sharxi maayo. meelun baa wax iska dhaafsiisan yihin. kama warramayo runtii waxbarasho oo dhan iyo saa loo barto, ama wixii ay falaasafadu ka hadli jireen cilmi epistemology iyo methodology oo laba baaba fi lfalsafa ardada jaamacadka iyo meelaha loo dhigdhigo. kana hadli mayno runtii dee aqoontan madaarista caadiga iyo waxaan lagu dhigo iyo qaabka loo dejiyo, laakiin waxaan isku dayaya inaan wax kooban un ka tilmaamno bal waxaa culumta sharcigaa ku saabsiisan. waayo cilmiga sharciga uu ka gedisay aqoonta kale lilmacrifa baa loo bartaa, laakiin aqoonta sharcigaa waxaa loo bartaa in lagu badbaado oo ilaahay ajar lagaga raadiyo oo aakhiro janno lagu helo oo naar lagaga baxsado oo basharka lagu anfaco. waxaa loo bartaa rabbi subxaanahu wa tacaala mas-uuliyaddu dadka muslimiinta ha saaray inay ku gutaan oo dadka kala gaadhsiiyaan. walidaalik waxaan isku dayayaa inaan wakhti kooban waxoogaa ka tilmaamo waxbarashada caalamalislaami ka jirtay ee ku saabsiisan culumta sharciga ahi. waxay lahayd duruq kala gedisan oo waddooyin kala gedisan baa ayaa loo soo maray waxbarashada. maalan azhar, jaamacat alazhar dariiqo caana bay lahayd oo rawaaqa meesha la yidhaha wax lagu barto oo culamada meesha joogto o dham ay dee rag xufaad oo cilmiga qaybsanay yihiin, oo classeska maalintii waxa la dhiga mooyaane galabtii uu sheekh u fadhiisto saaxada ardada oo ardadu waxay mudaakaraynayaan oo dhan ayi mas'ala adkaato hada sheekh fi kulli lfunuun keligii baa ka jawaabaya, ama kuliyat alxadiisi dhigo ama caqiido dhigo ama baabkaa doonayso dhigo. sheekh waaxid waayo waxay ahaayeen mawsuucaad culammadii hore meesha joogi jirtay. duruqkaa ka gedisan baa jiray oo matalan mauritania iyo dhulkaa looga baran jiray, ama masaajidda caalamalislaami ku yaalla o dhan looga baran jiray. xataa soomaalidu dhaqan ahaan manhaj bay lahaayeen cilmiya oo ilaahay subxaana wa tacaala diinta ugu xifdiyey oo ay isku soo gaadhsiiyeen. manhajkaasi cilmiga ay culammadii muslimiintay lahaayeen maraakis buu lahaa, funuun kala gedisanna dhigi jiray kuna kala fiicnaa. qaybo galbeedka soomaalida ku yaalla iyo qaybo koonfurta soomaaliyeed ku yaalla ayay u badnaayeen maraakistii cilmiga ahayd ee soomaalidu wax ku dhigan jirtay. waxaanay ahayn maraakis midho dhaliyey oo iyana culamo soo saaray. waxa aan sheegayo o dhan ee caalamulislaami ka jiroo dhamme culamay soo saareen, qolaba qualitigay doonta ha lahaato ama itaalkay doonta ha lahaato, laakiin waa wax soo saar bay lahaayeen. saxwadan cusub ee islaamiga ee dambe inteeda badani waxaad mooddaa manaahijtii way khilaaftay hore la hayay. manhaj cusubna may keenin oo manhaj musalsal oo caadi loo dhigta may keenin. jaamacaadka caalamulislaami laga sameeyey intooda badanina may noqonin badiilkii rasmiga ahaa ee madaaristaasi cilmigee la yaqaanay beddelayay. dabeetana waxaa iska soo baxay aqoon qasan oo qofku wax walba nutaf min alcilmi uu ka yaqaano. fanigii lasoo qaadaba waxbuu kaga dhegdhegaystay ama waxbuu ka garanaya, waxuu itqaaniyey ama wuxuu sugayna ma jirto. iska thaqaafaad caama ah ayay ku wada noqotay dadka aqoontii dambe oo dhami, waxoogaa cilmi dhagood u badan ama waxoogaa qiraa'o u badan oo uu dadku qiraa'o ku qaatay. waxaana laga yaabaa raggu intiisa badan in uu jiro nin bukhaariga bayjaj ka dhegaystay ama waxoogaa ka dhegaystay, arbaciinka laftiisa aan wada dhammaynay in ka dhegaystay. marka min 40 ilaa bukhaari inta u dhaxaysa raggu hadduu dhegaystay dee cilmina ma maqna, haddana waxba lama sugin. marka bal si guud waxaan u tilmaamayaa waxay wadaageen maraakistaasi islaamiga ah oo dhammi 3 shay. 3daas shay ay wadaageen wuxuu ahaa: kow, daraasaadka islaamigii waxay rumaysnaayeen dhammaantood inuu jiro muwajih mucallima oo dadku uu ku taxnaado wax ka dhigto. kaa way wada wadaagaayeen. waxay kaloo wada wadaagaayeen dhammaantood manhaj cilmiya ku
curriculumku siduu u qoran yahay ha kala gedisnaato ama qoloba kutubtay ku dartay ama madhabka fiqiga ay raacday ama say kutubta u kala horeysay ha kala gedisnaado manhaj cilmiya oo la raaco alif ilaa yaa lana way lahaayeen waxay kaloo dhammaantood wadaagayeen waqti muxadadana way lahaayeen waqti wax lagu barto oo muxadada oo qofku markuu intaasoo sano waxaa barto la yidhaahdo wuxuu soo gaadhay xad uu maxay uu waxaa aqoon u yeesho cumuumanna saddexdaa shay haddii la ilaaliyo cilmiga waxbaa laga keenaya kow inuu jiro qof mucallimi ama sheekhi ama muwajaha oo aqoon kaa roon oo weliba inuu caalim rabbaaniya yahay ay ku fiicnaan lahayd ninka caalimkii wuxuu kuu samayn karaa dhowr shayba kow yuwafir laka aljuhd aduu waxaad haddaad akhris ku wadi lahayd laga yaabo 5 saacadood 6 saacadood waxaad soo akhriyayso inuu nus saac kuugu sheegaaba laga yaabaa shayga asalkiisii iyo wuxuu ka kooban yahay siduu yahay nus saac uu kuu sharxaaba kaaga filaan kartaa laga yaabaa waxaad 6 saacadood ama 7 saacadood soo daraasayn lahayd waa marka labaade yusadid laka alfahm adigu in badan masaa'ilka waxaa laga yaabaa ama inaad dul marto ama inaadan dhuganin ama inay iskuba kaa rogto maqluubka aad u fahamto oo waxa sadarka ku qoran iyo fahamka aad qaadatayba uu yahay laba waxoo kala gedisan walidalik haddaad muwajah ama mucallim ama sheekh ku xidhan tahay oo wax kuu dhigaya waxay kordhinaysaa inuu fahamka kuu toosiyo saddex wuxuu kaloo kuu qabanayaa bay yidhaahdaan adab iyo suluuk iyo dhaqan baa laga bartaa cilmigu inta waraaqaha ku qoranoo qura maaha ninkan sheekha wax dhigaya siiba culimmada rabbaaniinta markay yihiin waxaa laga bartaa dhaqan iyo suluuk ama basharka uu la dhaqmayay ama uu isagu dhaqan yacni maadaama cilmigan sharcigii dhammaantiiba uu dhaqan yahay la rabo qofka muslimkii inuu fuliyo qofka kan dhaqankiisaad wax badan ka faa'iidaysaa iyo la jooggiisa iyo mas'ale weydiintiisa iyo ku-xidhnaantiisa haddaad biduuni mucallim socoto nawaadirta laguma xisaabtamo yacni waxaa laga yaabaa inaad soo hesho nin sheekhoo la yidhaahdo muu lahayn shuyuukh badan laakiin haddana naadirah noqday oo si khayru caadiya wax u bartay waa naadirkaasi waa malyan qof ama intaasoo milyan oo qof baa qof laga helaa kaa maaha kaynu ka warramaynaa waxaynu ka warramaynaa basharka caadiga ahi sida normalka wax u dhigto haddaad noqoto biduuni muwajih cid aan lahayn cid tawjiihisa ama macallina ama sheekha ama murabbiya aan wadanin waxaad la mid tahay adigoo dawooyinka kula dhaqmo biduuni tabiib adoo yidhaahda farmasigaasi leebeladu maan akhriyi doonaayo bal meeshay xanuunaysa intaan ku eego ayuunbaan mid laba ka liqi doonaa adoo yidhaahda u dhigan tahay iyo wakhtiga ay kaa qaadanaysa inaad dawooyinkan fahamtid iyo inaad waxa loo cuno garatid laakiin haddaad tabiib ku xidhan tahay si fudud buu kuu siin karaa mustawaa halkaad maraysuu garan karaa markuu ku itixaamo ama ku eego ama aad wakhti la dhaqanto meeshii lagaaga bilaabi lahaa buu garan karaa inta aad qaadi kartaa buu garan karaa markuu fahamkaaga iyo saad wax u fahmi karaysa u arko wakhtiga aad u helaysa markuu arko yacni qofkani sidii tabiibku kuula dhaqmaya hadduu sidii tabiibka kuula dhaqmayana markaa waxay noqonaysaa inuu ku daweeyo idan laabudda min caalimin aw shaykhin wax laga qaato xataa sina loogama maarmo waynu ka hadli haddii bal la waayo ashradadan iyo waxaan wax ma laga dhagaysan karaa ama onlineadan ama muraasalaadkan ama wacankan laakiin asalku waxa weeyaan inuu helo qofku maxay cid wax ka dhagaysto ka labaad ee asalkii waxa weeyaan cilmiga aad dhiganaysaa inuu manhajiyo yeesho manhaj ama curriculum inuu jiro aad raacayso fanniga doonto dhigo laakiin waa inuu jiraa curriculum aad raacayso from A to Z leh waa inuu jiraa waxaad ka bilaabayso adigoo aan fannigaba mustalaxaadkiisii sugin haddaad tidhaahdo mutawalaadkiisaan ka soo bilaabayaa way adagta inaad wax ka fahamto macquul maaha inaad tadriibu raawi dhigatid adigoo bayquuniyadu kugu adag tahay ama uu kugu adag yahay ay kitaab nukhbat ulfikr aan soo marin inaad tidhaahdo kuwa ugu dambeeya baan ka bilaabaya waa wax qaldan idan cilmigu wuxuu u baahan yahay waxay culammadu yidhaahdaan mutuunta fudud cidda sugta
ayaa cilmiga sugta bay yidhaahdaan. cilmigu waa musطalaxaadkii fannigu lahaa inaad si fiican u fahamtid, kulle mabaadi'diisii guudna inaad si wanaagsan u garatid, kadib baad tabsiidintiisa iyo balballaadhintiisa iyo waxaa gelaysaa. inta badan waxaa dhacda dhalinta dambe iyo qaabka wax u dhigtaan iyo duruusaadka iyo qaabka u baxaan inaanu manhajiye lahayn. siiba manhajiyadii maalan culimmadeennii soomaaliyeed ay ku dhaqmi jirtay waynu khilaafnay. cilmigii soomaalidu ay dhigi jirtay naxwe iyo fiqi baa u badnaa, culuum alqur'aan iyo culuum alxadiidna waxbaa laga dhigi jiray. manhaj bay lahaayeen la raaco. markay luqad tahay manhaj ay raacaan bay lahaayeen, hadduu sarfi yahay, hadduu naxwe yahay, hadduu caruud yahay, hadduu balaaqo yahay. manhaj siliba oo kala dambeeyo la yaqaano kitaab hebel aan lagu dhigaynin inaad kitaab hebel qaadato mooyaane bay lahaayeen. markuu yahay fiqi manhaj bay lahaayeen ay raacaan, inay kitaab yar oo maxaa la yidhahdaa safiinihi iyo wax la mida inay ka bilaabaan, dabeetana soo socdaan ilaa abishujaac soo dhigtaan, qaasimi soo dhigtaan, hore u soo socda. idan manhaj musalsaloo la yaqaano ayuu lahaa. hadday noqoto culuumi luga manhaj musalsaloo la yaqaano, laakiin madaaristan dambe ee wakhtigan dambe dadku ku dhaqmaa waxay u badatay madaaris waxa la qaatay fikraduna odhanaysa alkitaab wa sunna ha la dhigto, dabeetana alkitaab wa sunna halka u dambaysu ka bilaabaya. adigoon mabaadi'dii koowaade kitaabkii sunnaba lagu akhriyi karayay. asl ilcilmi waxaa ka mida bay yidhahdaan sheega inaad qiraa'adiisa sugtid, kitaabadiisana sugtid, kadibna aad fahamkiisa sugtid. waa asl ilcilm. nimaan sadarka akhriyi karin inuu yidhaha bukhaaraan dhiganayaa waa iska bukhaari lugoyn ee ma aha bukhaari barasho. asalku markaa wuxuu yahay in manhajiya jirto fi lcilm, oo dadku manhaj ay raacayaan oo cilmiya inuu jiro. ka saddexaad ee ay madaaristaas oo dham isku waafaqsantay waxa weeyaan inuu wakhti muxadadi jiro. hadduu iska daba furaado wuxuu ma dhammaadaan. oo maalan wakhtiyadan dambe ee dadku wakhtigu yaraaday ee lacagtu iska badatay ee dad khaliijka iyo carabta iyo meelahan aragta waxaad arkaysaa kitaab dhowr iyo 20 sannadood iska socday. waayo maalin khamiisaa la dhigaa, ama maalin qof bini aadam oo dhowr iyo 20 sannadood kitaab ku taxnaanaya markaa ma jiro. intuu kitaab ku soo bilaabo uu iskaga taxnaanaya hal kitaab dhowr iyo 20 sannadood ku taxnaataa macquul maaha. aqoontu waxay qiimo samaysaa. wakhtigu waa alxayaa, waa wakhti wax si fudud loo lumiyana maaha. aqoontu waxay qiimo samaysaa markaad wakhtiga xadido aad rabto waxa kan inaad barato. maalan qur-aankaad istiri xifdi, haddaad tidhahdo qur-aanka waan xifdinayaa laakiin albaabkiisu wuu furaanayaa, maalinba intii aan halaalo uno bal waa iska wadayaa horun baan u soconta, weligaa kaa dhammaan maayo. haddaad laakiin wakhti xadayso tidhaahdo qur-aanka waxaan ku xifdinayaa sanad, waxaan ku xifdinayaa 6 bilood, waxaan ku xifdinayaa 2 sannadood, waxaan ku xifdinayaa 3 sannadood. wakhti markaad xadayso waxaa la garanayaa inta aad fasax u baahan tahay, inta aad muraajaco uga baahan tahay, inta aad xifdiga u baahan tahay. waxaa la garan karaa wakhtigaa marka loo qaybiyo inta saacadood aad u baahan tahay inaad maalintii qaadato. waxay noqonaysaa markaa maanta hadday saacadi kaa habsaanto berri inaad ku dadaasho saacaddii inaad soo magdhowdo, waa ilaa waxaad garanaysaa inuu de meeshu qaybi ay kaa lumayso ay bannaanaanayso. wakhtigu markaa hadduu xadidan yahay manaahijtu waxay noqotaa manaahij wanafacda. that's why waxaan wax la dhigayo o dhan jaamacad tag, iskuol tag, wakhti xadidan unbaa la dhigaa. intaasoo sannadood baa la dhigaa ama intaasoo saacadood baa la qaataa. wakhti si u xadidan baa la qaataa. waxaa markaasi muhimkaahi wuxuu yahay 3 shay marka hore haddaad waxaad doonayso baro. 3 shay haddaad isla hesho waxbarashadu way fududaanaysaa. mucallim ama sheekh ama murabbi ama muwajih ama mushrif waxaad doonta dheh, qofkii kaa aqoonta badnaaye ku hagayay. ka labaadna kurklamaad raacdo, manhaj inuu jiro aad raacayso. manahijtu saa loo tatwiiriyo iyo say u kala qurux badan yihin iyo say u kala midhodhel badan yihin waa masale kale, laakiin waa inuu manhaj jiraa un la raacaya. manhaj aan cid saasoo soo saarini ma jiro, laakiin tajaaribtii bini aadamku unbaa kala qurux badnaysiisay. markii la daraaseeyey laleeyahy manhajkan baa kaa ka qurux badan ama kaa ka fiican ama kaa. maalan manaahijtii culammadii muslimiinta ay raaci jirtay waxaa ka mid ah, tusaalaan ku siinaya, 2 fanni inaanay isku darin. waxay ahaan jireen culammadii muslimiinta hore say isticmaali jireen intooda badani hal fannaa la dhigi jiray.
qofku markuu fannigaa intuu kitaabkaa ku jiro fannigaasiya fanni kale laguma furfuri jirin. iminkaan arkaya duwalkan casriga ah ee dambe bacduhum iskuulladooda ay nooca ka dhigeen. iskuul aad tegayso maalin dhan xisaabun la dhigayo aanu jirin wax kaloo lagu qasayo, laakiin maanta ay tahay maalintii xisaabta qura. laakiin caalamulislaami waagaa wuxuu ahaan jiray in hal fanni la dhigo, qofku fannigaasi kitaab ha ka qaato ama laba ha ka qaato, intuu kaa ku jiro mid kale laguma furo. fiquu maalan dhiganaya, kitaabkaa fiqiga intuu ku jiro fanni fiqiga ka baxsan may u ogolaan jirin inuu luqu dhiganaya, kitaabkaa naxwaa intuu ku jiro may ogolaan jirin inuu mid kale u baxo. halka iminka jaamacaadkan iyo nidaamkan casriga ee dambe laga yaabo 5 xiisadood oo kala nooca inuu maalintii qofku galo kalaaskii jaamacadda intaad gasho, xiisad caqiida oo mid xadiisa oo mid kana oo mid kana oo 5 kala nooca inaad dhigatay suurtagal tahay. waa laba manhaj ama waa laba curriculum oo kala nooca, waa la isbarbar dhigi karaa, waa la odhan karaa keebaa faa'iido batay ama keebaa caynkana, laakiin manhaj kastoo la raaca waxbuu soo saaraya intuu doonaha lekaade. manhaj kastoo la raaca waxbuu soo saaraya. marka waxaan uga jeedaa kala fiicnaantu ha inoo dambayso iyo say u kala xoog badan yihiin ama u kala qurux badan yihiin, laakiin waxa asalkii wuxuu yahay in 3 shay la helo: in muwajih la helo ama mucallim ama sheekh ama murabbi ama mushrif waxaad doonta ku magacaabo. ka labaadna waxa weeyaan in la helo manhaj cilmiya oo waxbarashada tan aad u raacayso, mustawuhu doona ha ahaado, mustawa bidaa'iya ha ahaado, mustawa sare ha ahaado, mustawuhu waa halkaad maraysa ku xidhan tahay, laakiin inuu manhaj jiro oo maalin ba aanaad kitaab isaga boodin ama maalin ba aanaad mid dhiganin ama adigu aanad iska codsanin. waxaa laga yaabaa kutubtu sheekhu akhriya inta ugu badan leh inuun arday sidataa la timo tidhaahda kana noo akhri kana noo akhri, lagu qasbaba sheekh inuu kitaabkan akhriyo, iyadoo laga yaaba dadkaba mustawihiisu inaanu kitaabkan ahayn. waa sababta kuu leeya inuu sheekh jiro. sheekh waxay in isaga la weydiiyo curriculumka la dhigayo ama waxa aad u baahan tahay ama mustawahaaga markaad u sharaxdo inuu isagu ku tawjiihiyo ku yidhaa waxaasaad u baahan tahay, waxa inaad awdaaba u baahantiin ama inaad baabkaa luqada horta soo barataan baa u baahantii saa kan u tal. laakiin haddaad adigoo kitaab un sito oo wadaad soo ammaanay oo ama intaad shariid ka soo dhegaysatay internetka ama cajalad la leeyahay kitaabkaasi waa kitaab aad u qornoo caynkana lasoo qaadunoo la yidhaha sheekh kana dhig, waxay u badan tahay inaad waxba badan ka kordhin. idan waa in manhaj jiraa, waktina waynu xadaysan yihi oo uu jiraa wakti loogu talagalay manhajkaasi inuu baxo. 3daa shay haddii laysla helo waxaan isleeyahay waxbarashadu way fududaanaysaa. wixii intaa ka baxsani waa qiraa'aadkan caamka ee qofku wax akhrinayo iyo si uu xooga faa'iidaysan lahaa. innagoo ogda shareecada islaamiga ahi waxay ka bilaabantayba iqra'. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii koowaada lagu soo dejiyay waa iqra'. qiraa'adaada lafteedu inay haadif noqotaa bay ku fiican tahay. iminka qiraa'aadku waxay isaga badan yihiin nadkoo aad gasho oo wixii kaa soo horbaxbaad akhrido ama meeliba meelun kuu jiida uno waxaad xataa u socotay waxaan ahayn maantao dhan aad rogrogto akhrido. dee dadku imika wax kalaba ma akhriya. 5 waba af soomaaliya galaano midba balkan kalena furo, 20 waba af soomaaliya intuu soo maro 20 khabarka soo qaado ama 20 carabiya inuu maro la nooca. waxay qiraa'aadkaaguna inay haadif noqdaan, inay meel ay ku socdaan leeyihiin. haddaad buug akhrinayso ama kitaab akhrinayso qaabka wax loo akhriya rasmiga inaad u akhrido. wixii litasliya iyo iska faandhafaandhowdku waa gaar, laakiin qiraa'aadka aad rabto inaad wax ka faa'iido ama nidaam aljald aw nidaam albataaqaat waxaad doonaysa raac. yani waxay dhahdaan buuggaad akhrinayso wixii fawaa'ida meelahay ku qoray inaad fahrasa jaldiga ugu samaysato oo adiga buugga fahrasadiisa dani kaama hayso, adiga wixii ku anfacaya aad tajriidinaysa faa'iida aad ka qaadanaysaa kaa haysaa. idan inaad buugga jaldigiisa ku qorto ama nidaam albataaqaat inaad raacdo maxay cards aad samaysato fanni walba wixii ama buug aad samaysato fanni walba مثلا في الفقه في الأصول في الحديث في الكذا وفوائد ضرور سطي كتاب كستاد آخرين يسوع فائدة حديثية كسامرتي إن هذا مش هذا كقرطه أما هذا كتب تعطوا ولا هذا اللايبراري كقول لي أنا إن هذا ما بطاقة وسماشة أما جلد قاعد كقرطه علم قوينتي سوق بدن له حتى كتب تسيريال لا بشيء بكسوق ما مديو حويان قرال قفكوا إنه وحقره insaanku ma aha cajalad intay wax dhagaysato weligiis kaga dheganaado maaha.
dadka waxa laga yaabaa kitaab buu soo qaadanaya soo fadhiisanaya wuu dhegaysanaya wuu akrinaya sheekhu ka dhegaysanaya wuu fahmay bes wuu laabaya waxba 4 casho kadib haddii lagu weydiiyo marka garan maysid shalay waad fahamtay waa sax markuu sheekhu akrinaya waad wada garatay laakiin qaabka ugu fiican waxa loo sameeyaa waxa weeyaan bay leeyihiin kow inaad wax taqyiidiso inaad wax qorto waana mas'alo dadkan dambe waxa baranaya aan arkay intiisa badan waliba masaajida dadka wax ka bartay zero ka taagan yihiin qof kitaab soo fadhiisto qalin iyo book sitaba maan arag ninka ugu fiican waa ninka kitaab soo haleelay meesha la soo fadhiistay ka sii yara dambeeyana waa ka inta badan isku daya inuu la fadhiisto mid kitaab haysta oo isha la yara mariya dhowrna iska cilmi dhigoodka u qaataana way iska dhegaystaan waxba badan ka qaadi maysidka hadaad rabto inaad wax baratay waxbarashadu dhab tahay qofku waa inuu qalin iyo buuggiisa wataa waa inuu fawaa'idda iyo waxaanu kordhinayo dhan waa inuu tajriidiyo qoraa waxaa jirta waxa ugu badan ee cilmigu ku sugmaa waxay culimmadu yidhahdaan waxa weeyaan waa masalatu tikraar kitaabka waad dhigatay waad fahamtay culimmadii hore waxay isticmaali jireen laba miduun kitaabka marka la dhigo ee la fahmo meel laguma tiirin jirin dib bay u akhriyi jireenoo way wadi jireen laba midun bay dooran jireen kutubta mutuunta ee asalka fanni walba u ah inay fanni walba mid ama laba kitaab qaybaan can dahri alqalb fanni kasta mutuunta rasmiga ah ee fannigaa loo raaco soomaalida waxaa caadi ahaan jirtay minhaajka way qaybi jireen soo minhaajku kitaab buuranida lama aha minhaajka way qaybi bale maalin dhaweyd shacalaaba netka iga tusay qolo xero oo subcinaysa minhaaj xagga laga subcinayo oo xalqa loogu fadhiyo oo subac lagu dareerinayo caadi bay ahaan jirtay culammadii muslimiinta hore waxaa caadi ahaan jiray kutubta rasmiga ah ee fanni walba kitaab rasmiya inay qaybaan oo xifdiyaan waxa kaloo culammada badh ay adeegsan jireen inay kitaabka isku dayi karaan xaddulxifdi haddaanu gaadhaynin xaddulistidhaar inuu gaadho oo ah qiraa'aadka sida loogu celcelinayo inuu garan karo bejka iyo safxada masaladu ku taalo yuu qaybsanaanin laakiin haddii mas'aladaasi ay ku soo baxdo wuxuu garanayaa ayi safxa ay kaga taallay meesha walidalik ba waxay yidhahdaan fuqahada markay sheegi jireen waa faqihun bilficli iyo faqihun bilquwa bay odhan jireen nin waa caalim faqiiha mas'ale kastoo la weydiiye waxay leeyihiin mas'aladana wuu garanayaa daliilkeedana wuu garanaya can dahar qalbi uma baahna inuu buug ku noqdo kuu baadho masalada markaad weydiisaba wuu kuu sheegaya waa caynka bidaliili qowlihi tacaala waa culamada raasikhiinta rasmiga ah waa inuu bilficli faqiihya bay yidhahdaan aw bilquwa bay yidhaahdaan bilquwa waa maxay mas'alada wuu istidhaaray ma xifdisana adiladii iyo wixii oo dhan laakiin waa mustadhir hadduu ku yidhahdo isug kitaabka markuu soo qaado safxaday ku taallu toosuu soo saaraya wuxuu garan karaa meeshay ku taallay madaanteedii iyo waxeedii oo dhan dabeetana waxaa laga yaabaa bacda daqaa'iq inuu kuu jawaabo adna waxaa laga yaabaa inaad fahrasada intaad tagto soo baadho madaantaba inaad weydaabaa suurtagala masalada meel allaaliya meel lagaga hadayba inaad weydo idan cilmigu inuu rusuukho waxaa keena bay idhaahdaan oo dadkan dambe iminka ku yar culammadii horena ku badnaa mas'aladaa ku celcelinta musطalaxulxadiid buu baranayaa matni mutunta ka midoo ama xifdinayaa ama wuu ku celcelinayaa akhris buu ku wadayaa uu rabo inuu fahmo ilaa iyo bay leeyihin masaa'ilka kitaabkaa ku qoran oo dhan uu istidhaari keeno uu can dahari alqalbi garan karo mas'aladaasi meeshii ay kaga taallaya kitaabka waxay kaloo isticmaali jireen kitaabka fanni kasta hal kitaab bay marjac ka dhigan jireen walidaalika waxaad arkaysaa iyadoo lagu odhanayo fi lfiqi alshaafici kitaabkaas baa marjac ah yacni kala tadriisiye rasmiga maalan fiqi shaafici mutaakhiriintu maalan waxay badanaa ictimaadi jireen maxay minhaajkoo kale waxa ay culammadii hore isticmaali jireen waxa weeyaan kitaab buu fanniga ka miduu ka dhiganaya kitaabkiisa rasmiga ayi fawaa'id kale uu soo helo kaas bay taxshiya uga dhigi jireen kaasuu xaashi uga dhiga maalan waaxid min kutub musطalax alxadiid baad baratay hal kitaab baad waxaad ka dhigatay inuu yahay waxaad u aragtaa zubad masaa'il alcilmiga fanniga kan rusuukhiisi inuu kitaabkan ku dhan yahay hada alkitaab wuxuu kuu noqonaya markaa kitaabkii rasmiga aad ictimaadaysay laakiin ayi kitaab la arko
mid kastoo kaloo aad akhrida faa'iido kama madhna masale aanu kani ka hadal ama uu sii yaro sharxay ama uu daliilla ku kordhiyay ama caynkan wixii fawaa'id ee aad soo hesho waxay yidhaahdaan kaaga rasmigaa ku dul qor marka wuxuu kuu noqonayaa kitaabkaagu kii rasmiga ahaa wixii aad meelaha ka soo faa'iide kale aad akhridayna waxay kuu noqonayaan xawaashi aad ku dul qortay في مسائل كباب كانوا دن كتاب كاساد استظهاريسا oo aad isku dayaysaa inaad ama xifdido ama kor ka qabatid ama uu ku soo dhawaado oo aad mas'aladii soo dhan soo koobi kartaa waxaan sheegaynaa waxa weeyaan waa yani بعض الطرق ay isticmaali jireen culamadii inay isku dayaan inay ku sugaan waliba hal mas'alo kala rabayna ku sii daro oo ku saabsiisan markay noqoto inay wax baxthiyaan ama mas'alo ay rabaan inay baadhaan dhibta jirta iminka waxa weeyaan qofku hadduu mas'alo rabo inuu baadho ama sheekh uu iskala yara dhacsanaa shariit uu leeyahay ama sheekh google intuu ku dhufto page yara u soo baxaya koowaad wixii ku qoraa inuu ku qanco طالب العلم قلنا رنتي وما عنتن توحاس سيبه مسائل شرعية هدي أطربته مسألة شرعية إن هذا ما وحكوغاته أما ميلا تسكتها كتيت وحيوبا هانتا كو إن هذا مسألة دا صورين كرتيت تصور قودنا كايستيت الفاضية مصطلحات كمسألة دا سيكو صاء أروري كحرا إن هدقراني سيد مركو هراني غريب كوكو نقوني ثاني الأمر وحيد هذا محل النزاع إن التحرير سه culimadu maxay isku hayaan waa maxay mas'aladatan nuqtada keenaysa in la murmaa waxa laga yaabaa midaal Soomaaliya jihaad baa ka socda mise kama socdo haddaad muran geliso mas'aladaasi oo kale baxthigaagu hadduu ka bilaabmo qolana jihaadkay diidantay qolana jihaadkay ogashay war sheekh muslim oo jihaad diidaa ma jiro sheekh muslim oo jihaad ogolana ma jiro asalku waxa weeyaan shariicada muslimiinta oo dhan mas'alada ogashay laakiin maxallu nizaac gaad waa maxay نقطة خلاف كانتي إن لمر كانتي نقطة معها إن شرعي أو جهاد كتير أنا كتير نقطة معها إذن محل النزاع مسألة كستوءات ربطه إن البحث ذا وإن تكوجد محل النزاع محويه هل كلاسكو خلاف سيء هي مشكلة دو كتاعة أنت محيته محل النزاع مركز تحرير سه وحكوا حاجة بيع علماء دو يرادان صورة ضتن محل النزاع هذا تقرير السيء متنازعة inaad keento adiladeeda oo aad waliba ka keentaba yidhaahdaan min kutub alkhilaaf aw kutub alcaqiida aw kutub wixii aad ugu noqonaysay maraajic ku ahaa aqwaasha keenistoodu bay yidhaahdaan waxay asal u tahay kow inaad taxriirin karto aqwaasha rasmiga ee laga yidhi aqwaasha rasmiga xagaad ka keenaysaa cid waloo qowl kale maalan madhabka shaaficiga ah ayaad rabtaa masaladan muxuu ka yidhi haddaad xanaabiladu markay shaaficiyada radinaysay wixii ay sheegeen aad u soo qaato oo tidhaahdo wabihi qaalat shaaficiya baa halkan ku qorayd waxaasi ma noqonayso wax shaaficiya loo qabanayo shaaficiya waxa loo qabanaya maxay maraajicdeeda asliga waxa ku qoran ama mansuuska ku sheekhi imaamka ee mas'alada tan sheekha ka ah uu yiri ama turuqdeedii iyo awjuhdeedii wixii ku soo arooray aqwaasha markaad taxriiriso ee sheegtid qowl kasta inuu sugan yahay inaanu sugnayn cidda tidhi iyo ciddaan odhanin intaa kadib waxaa la raadiyaa adiladoodana in la raaciyo qowl walba oo min kutubihim aad ka naqliso cid waliba wixii ay daliishatay waxaa la raaciyaa daliilka wajhul istidlaalka waxaa laga yaabaa marar badan inaad aragto masaa'il la daliishaday oo aad ugu fahmi weydo maxaa loo daliishaday kan waayo waxaanad baxdinin asli almas'ala meesha ku qorayd iyo wajhul istidlaalkii qaabku u daliishaday sheekhu mas'aladatan intaa kadib waxaa la eegaa munaaqashaadka masalada ka jira munaaqashadu waxay timaadaa marka aad aragto adiladii oo dhan oo la soo ururiyey maalan mas'ala baa laga yaabaa alwalaa walbaraa ama caynkana la isku hayo waxaa laga yaabaa inaad aragto laba qof oo murmaya midiba laba aayadood oo ilaahay kitaabkiisa ku taal buu la taagan yahay labada kalena kaana maani qur-aankaba ku oolin asli almas'ala waxa weeyaan mas'aladan wixii ku soo arooray daliila aqwaashan markaad heshay wixii mas'aladan ku soo arooray adilo oo dhan waa inaad keentaa ama adiga ha ku taageerayso saad u leedahay fikradaad u wado ama ka soo horjeedo wixii daliil ku soo arooray waa inaad keentaa kadibna waa inaad u weecataa waxa niqaashaadkii ka yimi مثلا haddaad adigu daliilkan sidan rajaxday maxaad kaga jawaabaysaa adilada kale wujuubadoodii way culimadu qoreen wayna meesha taala
waxaan mas'aladan ugu darayaa waxa weeyaan aan ka warramaya waxaad arkaysaa masaa'il diiniya oo waxaa la yidhi la ysugu hayo oo masaajidka wareerisay oo meelahan wareerisay oo cid ama baxthi cilmiya ku samaysay ama ciddii buxuusta samaysay waxeediyo si fiican loo akhriyana ma jirto haddana muran baa taaganun oo fadhi ku-dirarkii siyaasiga oo kale ku biirtay qadaayadkii diiniga ama masaa'ilkii sharciga ahaa inay fadhi ku-dirarka ku biiraan iyaguna maaha waa inuu noqdaa hadday mas'ale cilmiya tahay baxthi cilmiya oo rasmiya oo dariiqadiisii loo maray inuu noqdo oo qofku uu marayo intaa kadib cilmiga sharciga ahi wuxuu ku sugmaa maadaama uu sharci yahay aadaabtay culimmadu sheegi jireen oo ah niyo fiican inay marka hore qofku waxbarashada ula yimaado ikhlaas lilaah ilaahay dartii subxaana wa tacaala marka labaad waxay culammadu yidhaahdaan in dadka ahlulcilmiga uu tawqiiriyo oo waxa laga yaabaa caalim kastaaba mas'alo laga raajixiyey inaad aragto ay caalim mas'alo uu marjuuxa qaatay oo raajixu isagoo khilaafsanya inaad aragto waxay dhahdeen lama radiyo ashkhaastee waxa la radiya aqwaasha sheekh hebelkii caynkaa yidhi lama yidhaahday qowlkaasi ma saxa baa la taaganyay idan ashkhaasta lama radiyo waayo ashkhaasta radinteedu inta badan nawaayaadka radintooday tagtaa in qofka waxaasi uga jeeday iyo kanbuu uga jeeday nawaayaadka ilaahay unbaa ka hadla amaa basharku niyada shaqo kuma leh adigu dawaahirtaad xaq u leedahay dawaahirtuna waa aqwaasha la yidhi qowlka kan iyo wixii daliil cilmiya kaaga muuqda inaad ka hadasha aba meesha yaalla waxaa ka mid ah aadaabta loo baahan yahay ee culammadu inta badan adeegsan jireen inay ilaahay baryaan inuu ilaahay masaa-isha fahamsiiyo adducaa waxaa ka mid a ba culamada yidhaha alistikfaar inuu qofku badsado toobadkeentu ilaahay subxaana wa tacaala uu toobad keenayo cumuuman waxaynu leenahay manaahijta cilmiga culammadu ay kala mareen maan soo wada bandhigi karayno ama kuma saabsisno kollay dariskeenu laakiin waxaan warka kusoo koobayaa haddaad wax baranayso saddexdan qodobe koowaad ilaali inaad macallim waxa u yeelato iyo inaad manhaj raacdo iyo inaad wakhtiga taxdiidiso haddaad saddexdaa ilaaliso waxay u badan tahay inay natiijo dhasho waxbarashadaadu shayga ku xigaana waxa weeyaan haddaad rabto inaad suganto ku celcelinta badi kitaabka hays odhani waa dhigatay akhri oo ama xifdi ama xaddul istidhaar gaadh waxa aad faa'iidaysanaysee kale kitaabo ku taqyiidi qoraal ha ku sugmo oo ha kugu sugmo intaa waxaa kuu raacdaa ilaahay bari subxaana wa tacaala sala allahu calaa nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbi wasalam